kuwani hadda aad arkaysaan waxay kasoo degeen waa mooto waxa ay dhac u geysanayaan waa dad Soomaaliyeed inankaas hadda mataqana ugu dhacay markii uu arkay bistoolada telefoonka ka qaateen haddana ka kale mataqana u yeereen isaguna telefoonkeeda mataqana dhahankeen kadib waxay eedu u noqdeen mataqana mootadooda in raacaan waxay khalkhal gelin rabaan amniga xaafadda Islii kadib markay maqleen in gabdho lagu afduubtay wax la mid ah halkan waa Islii jaamka weeye marka kulley السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا الشرفت له هالكن مركز تا عن قوة كلنا وحان ربا هالكن إن أنا يدين كسو قدبيو أما بقى أنا يدين كشرحه قبل فرب بدني أو سوماليات أو ولي أو سعودو أفضوب كودا كسعودو دالك كيني marka hore waxaan dul mareynaa gabadhii u dambeysay baraha bulshada qabsatay iyada oo mataqaanay si xun loola dhaqmayo lacag 5 milyan la weydiistay oo madax furasho ah halkii ay ku dambeysay shalay waxa soo baxay garinkii hore in gabadhaasi ay dhimatay meedkeedina la helay balse arrintaasi been bay noqotay kadib markii inagu xataa aan la xiriirnay police stationka Kiyole kada soo ogaanay arrinta iyada in ay tahay waxba kama jiraan gabadha meedkeeda la helayna ay ahayd gabar kale oo Soomaaliyeed oo idan saas kale la afduubtay lagana afduubtay xaafadda Kiyole yay ahayd laakiin gabadhani ilaa hadda waa la laayahay shalay xildhibaanka laga soo doorto Kamakunji Yusuf Xasan yaa wuxuu sameeyay markiiba xiriir kala duwan bulaamaha amniga iyo mataan uu la sameeyay ugu horeeyo wasiirka amniga Mimitiyangi oo mataqaanay uu yiri waa in sida uu dhaqsaha badan wax laga qabto amniga xaafadda Islii Kamakunji meesha afduub ka dhacayna Kamakunji ahayd oo mataqaanay uu xildhibaanku ka yahay Yusuf dadaal badan buu sameeyay waxaana abaandulaha ciidanka uu sheegay in ay sameynayaan special forces ciidan gaar ah in loo sameynayo amniga xaafadda Islii iyo waliba townka xataa laftiisa waa isaga xataa war idinka heno marka gabadhii ilaa hadda waa lagu daba joogaa waa la raadinayaa wali war cad laga mahayo ilaa hadda raadinteedu way socotaa balse waxa soo baxday isla xalay iyadana in gabar kale oo Soomaaliyeed yar iyada in laga afduubtay magaalada Gaarisa xaafadda Liira Bulriig ayna keeneen meel duur ah xaafad Liira Bulasheekh ina keeneen halkaasina ay sakiin gabadhii mataqaan ay ku sarsareen dadka saas ee waxa sameynayeen ay ahaayeen rag Soomaaliye iyo niman madow inay ahaayeen yaa mataqaan la sheegay gaari baan ku soo afduubtaan ku soo qaateen waxay rabeen in la soo gudbaan bundada ee dhankan ee Nairobi ay la soo aadaan waxay noqotaba balse nasiib darro iyo nasiib wanaag gabadha xaggeeda ah iyo nasiib darro iyo xaggooda ah yaa waxa dhacday in delay ama dib dhac in uu ku imaado meeshii dadkii loogu talagalay in bundada ay ciidan ba fadhiyo bundada oo booliska ilaaliyo marka in habkii loo marin lahaa in ninkii ka shaqeyn la arinta iyada ah uu ka soo daahay meesha iyagana meesha ay imaadeen kadibna halka ay ahayd gabadhii intay iyaga murmayeen ay kaga baxsatay gabadhii saak isbitaal baa la geeyay waa la soo daweeyay hadda waxay joogtaa xarunta booliska halkaas baaritaankii iyo ka socdaa waan idin soo wadnaa muuqaalka gabadha iyo iyada oo mataqaanaa wareysiga la qaaday waxa ku daawan doontaan barnaamijkaanaga dambe hadda wariyaashaanaga ku sugan magaalada Gaarisa yaa baaritaanka ayaga mataqaanaa yaa wado oo hadda jooga xarunta booliska wixii ka soo baxo waa halkan insha Allah idin kula wadaagi doonaa waxa kaloo isla maanta dhacday xaafadda Islii iyadana xaafadda California oo gabadhii horeba mataqaanaa ay deganeed gabar yar oo standard 8 dhiganeysay in saaka markii isuulka aad 12 la waayay ilaa haddan la laayahay idan waa la laayahay meel afduubtay ma kale ka dhacday gabadhii reerkoodii waa waayeen ilaa hadda mataqaanaa booliska ay geeyeen leeyin gabadhan hal loo raadiyo iyo dadka xaafadda intaba marka wuu soo tarayaa mataqaanaa dibka loo geysanay gabdhaha Soomaaliyeed isla shalay casarkii xaafadda iyada lafteeda waxa ka dhacday xaafad meeshan Jam Street iyo shirika dhaxdooda wadadan mataqaanaa kala barta waxa ka dhacday in shalay casarkii rag hubeysan oo saaran mooto bajaaj ama mooto saaran in intay dadka telefoon intay ku qabtaan bistoolad in dadka ka qaadanayeen telefoonada CC camera duubtay caadi ba mataqaanaa loo wada arkay wax muuqday buu ahaa marka halkaas marka waxa laga dareemi karaa in amni darra muxuu aan saa u sii weynin laakiin la dhigi karo aan la dhiilsan karin in ay ka jirto mataqaanaa xaafadda
taasi oo looga baahan yahay booliskii iyo weliba gaar ahaan raggii Soomaaliyeed ee mataqaanaa ka howlgelay jiray xaafadda in arrinta ay wax ka qabtaan. rag baa u xil saarnaa amniga mataqaanaa dadka iyaga tuugadaasi meel saaray muxuu ahaa loogana dambeeyay xaafadda amnigeeda in ragga iyaga howlahooda ay qabsadaan mataqaanaa loo baahan yahay oo tuugada iyada ee mataqaanaa si dhaqso badan lagu saafjiro. marka inagu mar kastaba waxaan halkan u soo fadhinaa inaan idin soo gudbino wixii mataqaanaa soo cusboonaado. qadiyadan iyada ee afduubka ah kaliya horta kuma sugna Kenya ma aha, balse sanadkii 2020 ilaa hadda 2021 lagu jiro wadamo badan oo waxaa jiray si weyn u saameeyay afduubka. waxa ugu horeeyay dalka Nigeria wuxuu noqday Afrika wadamada ugu afduubka badan uu noqday oo markasta mataqaanaa gabdhaha mataqaanaa la afduubta la waaya madax furasho la weydiiyaa. waxa isna waayeen dambe ku soo biiray dalka Koonfur Afrika, South Africa isagana sidoo kale awal Soomaalidu waxaan naqaanay in intii la weerar la dilo, laakiin hadda ma jirto si adeed. waxaa la yiri qofka booska ama meesha mataqaanaa xogaa hanti yar leh intii kor laga weydeysto xataa dadka sameynaya Soomaali yihiin qaar kood leeyahay oo tuugada la shaqeysanayo kor baa laga weydeysan waa la arkayaa kadib waa la afduuban gaariga lagu ridi waxa la geysanayaa guriga lagu soo xiri waxaa la lacag $20,000 keen $30,000 keen waliba xataa waxa u dheer dadka qaar waxa lagu leeyahay waxa muuqaal laga duubaya iyagoo mataqaanaa la jirdeliyo iyagoo xataa mataqaanaa gadaal looga tagayo iyo wixii la mid ah ilaa lacagta ay ka bixiyaan sida ay mataqaanaa ay ku wadayaan. marka dhibaatadaas oo fara badan mataqaanaa ay ku hayeen halkanna hadda waxaan dareemeynaa iyadana in gabdhaheena yar yaraa in iyagana arinta iyada ay hadda ay ku soo cusboonaatay. waa arin aad mataqaanaa looga walbaharo dhibaatadeedan leh la dareemi karana marka iyada in cabsi fara badan meesha iyada mataqaanaa ay ka jirto cabsi fara badan inay ka jirto. isli kaliya ma fiiri bal hal marba waxay ka dhacday Mombasa gabar Soomaali kadib isli kadib Kiyole haddana isli Garissa fiiri. marka waxaad garan kartaa marka waxaan inay yihiin shabakad isku xiran oo meel kala duwan oo dalka ah ka howlgalayso, laakiin dhici karta inay hal madax inay leedahay yaa laga yaabaa. laakiin ogaada booliska ama sirdoonka dalka Kenya igu soo orodna xaqiiqatan dowladda Kenya way iska yar dhigay, laakiin se markay soo qabato ilaahay iga sareeyo in lagu waayo. waan la ogyahay Afrika dowladda ugu adag baa dhanka mataqaanaa sirdoonka galdo waa la ogyahay. marka Kenya wax aad saaq loo luuqa ku waxan karta maahan door bari waa dhici karta in wax meelaha ka qad qaadato, laakiin marka u dambeeyso alambaqa ku dambeynaysa. marka intaasi waa dhiirin boolis aan ku dhiirin waxa kale oo jira iyadana isla kuwan laftood inay yihiin laga yaabo dad kale oo iyagu waxa jira muxuu ahaa townka ama muxuu ahaa suuqa hoose muxuu ahaa caasimada in iyagana ay jiraan rag tuuga ah oo adigoo socdo xoog intay ku qabtaan ku baaranayo yaa jira oo la arkay oo la ogyahay oo bariyahan dambe idana cabsida mataqaanaa yeelatay. marka ragga laftooda waxaa la faray in loo sameeyo ciidan gaar ah dharcad ah oo markay arkaan iyagoo dad qabanayo halka ku tooganayo ayaga loo sameeyay iyaga laftooda la soo afjari doona dhawaan. marka guud ahaan amniga dalka halkaas mataqaanaa maraya muuqaalkaas isaga ee aad idin sheegay ee gabadha idan lagu afduubtay Garissa ee sakinta lagu sarsaray idana dhawaan naga fishay insha Allah. barnaamijkan isagana waa xogta ugu dambeysay ee ku saabsaneed gabdhaha Soomaaliyeed ee lagu afduubanayo dalka Kenya. intaan barnaamijkan mid ka xiga ku kulmin hadii ay beedmo waxaan idin kaga tagayaa siyaasiyiin nabad gal.